soo dhawaada saaxiibayaal wiilkiina Sista Films bilowga sheekada waxayna ragnaa laba saynisyahan oo ku sugan shaybaarka H Company Tucker iyo Markley labada nin waxay sameeyeen tijaabo iyagoo isticmaalayaan yaanyo si ay u sameeyaan dheecaankan wuxuu gaar u yahay in qofkii isticmaala uu san weligiis wax dhibaato ah soo gaari doonin markii tijaabada la dhameeyay dheecaanku diyaar noqday waxay go'aansadeen inay tijaabiyaan waxayna yaanyadii ku tuureen darbiga laakiin yaanyadii gabi ahaanba way burburtay oo jajabtay labadii saynisyahan markii ay taas arkeen way niyad jabeen isla markaas waxay isku ballan qaadeen in ilaa dheecaanka laga sameeyo marnaba isdhiibi doonin subaxdii xigtay dukaan biisada lagu sameeyo wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Matt ayaa bilaabay inuu biisa diyaarsan ka soo saaro mashiinka laakiin biisadii ayaa dhulka ku dhacday oo ka xumaatay markii ay taas aragtay hooyadiis Maris Burns way xanaaqday sababtoo ah Matt hal toddobaad gudihiis ayuu loo biisa akhribay haddana waqti uma hayaan ay biisa kale ku sameeyaan waqtigii loogu talagalay sidaa darteed Matt hooyadiis waxay tiri lacagta khasaaraha mushaharkaaga ayaa ka jaraya laakiin Matt wuxuu hooyadiis u sheegay inuu lacagta aad ugu baahan yahay wuxuuna ka codsaday inaysan sidaas sameyn hooyadiis way ogolaatay laakiin hal shuruud ay ku xidhay waxay tiri waa inaad dibadda istaagtaa adiga xidhan dharka shaqada biisaha si aad dadka gudaha ugu soo jiidato si la mid ah sidii aabihii sameyn jiray kaas oo aan hadda adduunka joogin hadda Matt waxaa khasab ku noqotay inuu dharkaas xidho oo dibadda u baxo halkaas waxaa yimid wiil la yiraahdo Todd oo kuliyadda caanka ahaa kaas oo gaarigiisa qaaliga wata wuxuuna yimid dukaanka hortiisa kadibna wuxuu bilaabay inuu Matt caayo oo bahdilo waxaa la socotay saaxiibtii Susan gabadha Matt oo isna hoosta ka jeclaa laakiin miskiinka weligiis kuma dhiiran inuu arrinta gabadha u sheego bahdilaadan kadib Matt wuxuu go'aansaday inuusan halkan dib ugu soo laaban laakiin hooyadiis ayaa u sheegtay in aabihiis uu dharkan u xiran jiray faan iyo sharaf si uu qoyskiisa u daryeelo iyadoona ku tiri dukaanka adiga leh maxaad ka xishoonaysaa markuu taas maqlay Matt iska ilaaway dharka wuxuuna xidhnaa dharkii maalintii oo dhan dhanka kale shaybaarka H markii labadii saynisyahan soo laabtay waxay arkeen in yaanyadii burburtay ay si la yaab leh u soo kabatay oo is hagaajisay isagoo aan arrintan rumaysan karin Professor Tucker ayaa marka la tooray yaanyadii waxaana indhihiisa hortooda yaanyadii ku soo noqotay qaabkeeda hore si iskeeda habeen iyo maalin kadib shaqo adag waxay ugu dambeyntii ku guuleysteen dheecaan ka dhigay yaanyada mid aan dhimanayn hadda waxay rabaan inay bini'aadamka ku tijaabiyaan dhanka kale Matt wuxuu dhameeyay shaqadiisa biisaha wuxuuna aaday kuliyadda fasalkiisa laakiin shaqada badan ee dukaanka awgeed miskiinka Matt aad buu u daalanaa wuxuuna ku loonayay oo indhuhu isku dhigdhigayeen fasalka chemistry-ga ee Professor Tucker markii xisadu dhamaatay Professor Tucker ayaa Matt kiciyay oo ku yiri haddii aad rabto inaad mustaqbal yeelato inaad fasalka diiradda saartaa waan ogahay inaad caqli badan tahay ee isticmaal laakiin Matt wuxuu aaminsanaa inuusan waxba qaban karin oo noloshiisa oo dhan hooyadiis la sameyn doono biitso kadib Professor Tucker wuxuu Matt ka codsaday inuu biitso ugu keenay shaybaarka sababtoo ah wuxuu rabay inuu tuso daafurkiisa cusub Matt si degdeg ayuu u ogolaaday markii uu kuliyadda ka baxayna wuxuu ku laabtay dukaanka biitsaha si uu magaalada oo dhan biitsa ugu qaybiyo dhanka kale shaybaarka H Master Chesel ayaa labada saynisyahan la hadlayay isagoo ka dalbanaya natiijada isla markaas Professor Tucker wuxuu tusayay wuxuuna ku yiri tan burburi markii Chesel sidaas sameeyay yaanyadii way burburtay oo kala daadatay laakiin ilbirqsiyo gudahooda ay yaanyadii sideeda ku noqotay kadib saynisyahanadu waxay sheegeen inay ku guuleysteen dheecaan dib u soo celin kara qaabka shay kasta oo burburay hadda Professor Tucker wuxuu aaminsan yahay in dheecaankan dadka loo isticmaalo taasoo gacan ka geysan karta daweynta cudurro badan laakiin Chesel wuxuu rabay inuu dheecaanka ka iibiyo ciidanka sababtoo markaas cidna waxba kama qaadi karto ciidankeena laakiin saynisyahanadu kuma farxin arrintan sababtoo waxay dheecaanka u sameeyeen in dadka lagu caawiyo ee maaha in dagaal iyo hub ahaan loo adeegsado Professor Tucker wuxuu go'aansaday inuusan marnaba ogolaan inuu qorshaha madaxiisa guuleysto dhanka kale magaalada Matt wuxuu waday shaqadiisa ilaa uu ka soo gaaray keenista biisaha ugu dambeeyay kaasoo ku socda shaybaarka Professor Tucker miskiinkaas muusan ogeyn in Master Chesel uu soo diray ilaaladiisa gaarka ah John iyo koox dablayaal si ay saynisyahanada uga soo xadaan dheecaanka markii uu Matt biisaha u dhibay Professor Tucker labadoodaba waxaa hareeyay tuugadii kuwaasoo dalbanaya dheecaanka iyo yaanyada aan xumaanayn laakiin Professor Tucker si cad ayuu u diiday hase yeeshee saynisyahanka kale ee Markley ayaa wax walba u dhibay tuugada wuxuuna shaaca ka qaaday inuu la shaqeeyo Master Chesel Markley iyo tuugadii way tageen laakiin jidka ayuu yaanyada dhulka ku tuuray kadibna dhammaantood waxay sugayeen in yaanyadu soo laabato laakiin markii ay soo kaban weydii Markley wuxuu ogaaday in Tucker uu yaanyada bedelay isagoo cidna u sheegin isla waqtigaas Professor Tucker wuxuu khasnada kala soo baxay yaanyada rasmiga ahayd iyo irbad jeebkiisa ayuuna ku qariyay kadib Professor Tucker iyo Matt waxay isku dayeen inay dhismaha rasmiga ka soo baxaan laakiin waxaa ka hor yimid tuugadii waxayna ku fureen rasaas aan kala joogsi lahayn taasoo keentay in Professorka xabad ku dhacdo xabad kalena waxay gashay Matt garabkiisa inkastoo ay waxaas oo dhan dhaceen labadoodaba waxay ku guuleysteen inay gaadhaan saqafka sare halkaasoo Tucker uu Matt ku dariirbad dhaawacyadiisa ilbiriqsiyo gudahood ku bogsiinaysa kadibna wuxuu Matt ku yiri cunyaanyadan waxay ku siin doontaa awooddaasna waxaad u isticmaashaa oo kaliya shaqooyinka wanaagsan ugu dambeyntii Professorka waxaa soo gaaray tuugadii oo ku yiri haddii aad rabto inaad naftaada badbaadiso yaanyada noo dhiib laakiin Tucker wuxuu jeebkiisa kala soo baxay dhalal kiimika ah dhulka ayuuna ku dhuftay taasoo dhalisay qarax weyn oo cadowgii ka yaabiyay laakiin nasiib daro Professorku dhaawacyadaas kama badbaadin wuxuuna ku dhintay Matt hortiisa Matt oo xanaaqsan ayaa go'aansaday inuu cuno yaanyada John ayaa isku dayay inuu joojiyo laakiin isla waqtigaas Matt dhismaha saqafkiisa ayuu ka dhacay inkastoo uu soo dhacay Matt wuxuu kacay sidii inaan waxba gaadhin gaadhigiisa ayuuna fulay oo halkaas ka dhaqaaqay isagoo gaadhiga wada ayuu Matt xanuun dareemiyay inuu bukoonayo
sidoo kale amiirka ayuu beelayay gaadhiga ayuuna wadada dhexdeeda joojiyay nasiib wanaag maat wuxuu gaadhiga dhigtay guriga Susan agtiisa Susan markii aragtay xaaladiisa ayay gudaha ugu yeertay kadib markii ay biyo u doontay waxaa yimid Todd oo weydiiyay waxa uu kani halka ka sameeyo maadaama aynan xafladda ku casuumin maat wuxuu isku dayay inuu u sharaxo laakiin Todd ayaa si khasab dibadda uga soo saaray xitaa wuxuu maat ku dhuftay Fed laakiin markii uu feeray Todd gacantiisa ayuu waxyeello u geystay oo jabiyay kadib saaxiibada Todd ayaa u yimid inay caawiyaan laakiin maat si fudud ayuu uga adkaaday mid kamid ah wuxuu ku tooray miiska ping-pong dushiisa kadib maat halkaas ayuu ka baxay oo gurigiisa ku laabtay laakiin yaanyada saameynteedu ma daynin sirta ayuuna ku sooxay maalintii xigtay markii maat uu hooyadiis quraacda la cuniyay wuxuu isweydiiyay malaha yaanyadii shalay ayaa awoodi siisay ugu horreyn wuxuu gacanta ku taabtay dab shidan wax xanuunana haba yaraatay muusan dareemin kadib maat wuxuu isku dayay inuu gaadhi qaado kaliya isagoo isticmaalaya gacmihiisa si fudud ayuuna gaadhiga u qaaday waxaa uu caddaatay in Professor Tracker uu run sheegayay kadib maat wuxuu aaday dhanka dukaanka biitsaha halkaas ayuu TV-ga ka arkay warka dhimashada professorkiisa xaaladda oo sii xumaanaysa John iyo raggiisa ayaa yimid dukaanka biitsaha waxayna hooyadiis weydiiyeen aawi wiilkaagii markii ay aragtay inaysan askar u ekeen Mr. Brones waxay ku tiri dhammaantiin dibadda u baxa amar la'aan cidna halkan ma soo geli karto kadib John ayaa si khasaba mid kamid ah raggiisa gudaha ugu diray laakiin Beres Brones ayaa si lama filaan ula soo baxday usha baseballka oo weerartay ninkaas isla markiiba raggii John ayaa qoryo ku qabtay oo ku yiri aamus oo noo sheeg halka uu wiilkaagu joogo Mato jikada ku jira ayaa wax walba arkay si uu hooyadiis u badbaadiyo wuxuu aaday inuu soo qaato dharkii aabihiis wax yar kadib John iyo raggiisa waxay bilaabeen inay Mr. Brones riixaan oo ay alaabta jikada daadiyaan si lama filaan mid kamid ah raggii John ayaa hawada u duulay markii ay dhammaantood gadaal eegeen waxay arkeen Mato xiran dharka biisaha Mato wuxuu yiri waxaan ahay superhero magacayguna waa Powerman markay taas maqleen John iyo raggiisa way ku qosleen iyagoo le adigu waxaa tahay on Beastman jirkaaguna dagaal uma diyaarsan ee isdhiib adigoon dagaalamin laakiin Mato wuxuu adeegsaday awoodiisa cusub oo weerar ku qaaday dhammaantood markii mid kamid ah raggii uu xabad ku riday xabaddu waxba ma yeelin dharkiisa markuu tuugadii ka adkaaday Mato wuxuu qabtay John oo le igu imow shaybaarka laakiin Mato oo weli ka xanaaqsanaa dhimashada professorka dartiis wuxuu dib u riixay John laakiin arrintan darteed John lugtiisa ayaa u siibatay dhanka foornada taasoo keentay in wajigiisa barkiisa uu si xun u gubto isagoo argagaxsan wuxuu u yeedhay raggiisa wuxuuna u cararay dhakhtarka si loo daweeyo wajigiisa gubtay dagaalka kadib Maat hooyadiis ayuu si toos u geeyay isbitaalka daqiiqado kadib Maris Brones way soo miirsatay waxayna wiilkeeda weydiisay maxaa dhacay Maat ayaa hooyadiis u sheegay sheekada oo dhan markay taas maqashay Maris Brones waxay go'ansatay in dukaanka la xidho ilaa ay wax walba ka hagaagayaan waxayna u sheegtay Maat markii aan suxsanaa waxaan ku riyooday aabaha waxaan arkay isagoo xiran dharka delivery manka wuxuu isticmaalaya awoodiisa si uu noo badbaadiyo markuu taas maqlay Maat wuxuu go'aansaday inuu dharka Pizza manka ku dagaalamo wuxuuna wacad ku maray inuu awoodiisa dadka ku badbaadiyo ee uusan wax xumaan ku geysan qol kale oo isbitaalka kamid ah John wajigiisa ayaa faashada lagu duubay dhakhtarku uu baaray oo ku yiri waa inaan jirkaaga qayb kamid ah maqaar ka soo jarnaa si aan wajigaaga u saarno oo uu u bogsoodo kadib John ayaa muraayada isku eegay markuu arkay wajigiisa uu wiilka biisaha wada kharibay aad buu u cadhooday wuxuuna ku dhaartay inuu superhero-gan ka argudanayo qiimo kasta ha ku kacday Mato aan ka warqabin waxa socda wuxuu aaday inuu dukaanka biisaha xidho maadaama hooyadiis weli isbitaal ku jirto waxa uu yimid dambi baare Moser oo ku yiri saldhigga Nora markii ay saldhigga gaadheen Mato wuxuu tusay Moser muuqaalada CCTV-ga ee xilligii tuugadu soo weerareen Maris Brones Moser wuxuu tusay ninka maskarada xiran ee tuugada garaacayay wuxuuna ka shakiyay inuu Maat yahay Beastman Mato wuxuu yiri maya aniga ma aha sidee baan u dagaalami karaa tuugada intaas leey jirkayga fiiri ma kula tahay inaan hooyada qaadi karo isbitaalka geyn karo dambi baare Moser markuu fiiri ayuu qiri haa oo meekid laakiin wuxuu yiri baaritaanka waa sii wadi doonaa si aan u ogaado qofka uu yahay Beastman markuu saldhigga ka baxay Maat wuxuu aaday aaska Professor Tracker halkaas ayuu mar kale kula kulmay Susan uuna ka raali geliyay wixii xafladda ka dhacay halkaas oo uu ku garaacay Todd iyo saaxiibadiis laakiin Susan waxay tiri maxaad ugu cudur daaraysaa iyaga markii hore ku soo weeraray adigu naftaada uun ayaa difaacaysay dhaqanka Todd aad ayuu u xumaa waana kala hadhnay markuu taas maqlay Maat caloosha ayuu aad uga farxay in muddo ayay wada sheekaysanayeen intaa kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo oo aad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay waayo waan jecel lahay inuu nagu soo biiro daawado sidaadoo kale u wanaagsan haddii aynu soo noqono muuqaalkeena dhanka kale Mr. Jessel iyo Professor Mackley waxay ka wada hadlayeen sidii dheecaanka loo soo celin lahaa laakiin kulanka dhexdiisa waxaa soo galay John oo wajiga ka gubtay wuxuuna sheegay inuu awoodda Beastman qaadan doono sidoo kale wuxuu yiri hadda kadib aniga shirkadda madax ka ah waan ka daalay amarada Jessel markuu taas maqlay madaxu wuxuu yiri waad wala timiya laakiin John ayaa la soo baxay qorigiisa oo toogtay Jessel markuu madaxiisii dilay kursiga ayuu ku fadhiistay wuxuuna ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha cusub ee shirkadda magaciisa cusubna wuxuu ka dhigay Big Cheese John wuxuu markii hore ka amray Professor Mackley inuu holahabu dhiicaanka ugala baxo dhiigga Beastman si uu isagu iskugu duro saynisyahanku wuxuu yiri markaan cilmi baadhisteeda dib u eegay waxaan helay daciiftinimada Beastman bakteeriya ku jirta caleenta tubaakada ayaa sabab u ah in qiiqaas uu saameeyo qaabka yaanyada taasoo ka dhigaysa awoodda Beastman mid
midaan waxba taray. Big Cheese aad buu ugu farxay warkaas, wuxuuna raggiisa ku amray in qiiqaas uba laga dhigo si ay Beastman ugu qabtaan. markii wax walba diyaar noqdeen, Big Cheese iyo toogadiisii waxay aadeen kuliyadda maat dhigto. waqtigaas maat wuxuu fasalka kula jiray professor, si lama filaan ayuu xanuun u dareemay, kadibna suuligii ayuu aaday. Big Cheese iyo raggiisa ayaa soo galay kuliyadda, waxayna qoliyo ku qabteen professorka iyo ardayda iyagoo weydiinaya maat. Susan ayaa si degdeg ah fariin ugu dirtay maat oo u sheegtay in tuuga raadinayaan. maat si degdeg ayuu aaday suuliga u dhow, wuxuuna soo xidhay dharka Beastman. hadda maat wuxuu u diyaar garoobay inuu Susan iyo ardayda ka badbaadiyo tuugada. intaa waxaa dheer Big Cheese fasalka kama helin maat, laakiin wuxuu helay buug maat wax ku qoran jiray oo ay ku jiraan fariimo jacayl oo Susan ku socda. markuu ogaaday in gabadhu qolka ku jirto, Big Cheese wuxuu go'aansaday inuu qafaasho si uu maat dabinka ugu soo rido. kadib tuugadii oo dhan waxay wateen gabadha, laakiin Beastman ayaa jidka ka gooyay, wuxuuna Big Cheese ku yiri Susan siida. Big Cheese ayaa raggiisa ku amray ku buufiyo qiiqa sigaarka. sidii Professor Mackley sheegay ayay noqotay, maat awoodiisii uu waayay. Beastman qiiqa uu adkeysan waayay, dhulka ayuuna ku dhacay. Big Cheese wuxuu amray in jirkiisa laga soo saaro dheecaanka, kadibna wuxuu tuugadiisa ku yiri dila, laakiin inta aysan dilin fasalkii ayaa dhammaaday. ardaydii oo dhanna fasalada ayay ka soo baxeen. Big Cheese Susan ayuu qaatay uuna ka baxay halkaas, wuxuuna raggiisa ku amray inay shaqada dhammeeyaan. laakiin markii qiiqii tegey, awoodii Beastman way soo noqotay, hal weerar ayuuna dhammaantood ku laayay. kadib maat wuxuu u cararay inuu Susan badbaadiyo, laakiin Big Cheese ayaa horey u sii qaatay oo geeyay xaruntiisa. markuu Susan ku xidhay shaybaadhka shirkadda, Big Cheese wuxuu galay kulan uu la lahaa saaxiibadiis. kulankaas maalgashadayaashu waxay weydiiyeen dheecaanka. kadib Professor Mackley isagoo caawinaya agaasimaha wuxuu tusay dhiigga maat laga soo qaaday oo uu dheecaanku ku jiro. sidoo kale Big Cheese wuxuu naftiisa ku tijaabiyey in yar oo ka mid ah, taasoo keentay in nabaradii gubtay ee wejigiisa ay gebi ahaanba baaba'aan. laakiin muddo yar kadib nabaradii way soo noqdeen, taasoo caddaynaysa in dheecaanka si buuxda loo sameeyo ay u baahan tahay shaqo badan. laakiin dhanka kale tijaabadaas yar waxay ku filnayd inay qanciso maalgashadayaasha. waxay ballan qaadeen haddii tijaabada la dhammaystirin inay mashruuca lacag gelin doonaan. kulanku wuu socday, markaas ayuu maat soo gaadhay dhismaha si uu Susan u badbaadiyo. laakiin marka hore maat waa inuu ka gudbaa ilaalada shirkadda, sidaa darteed wuxuu iska dhigay inuu biisa u wada agaasimaha shirkadda. qorshihiisiina uu shaqeeyey, ilaaliyihii wuxuu ogolaaday inuu gudaha galo. maat wuxuu dharka Beastman ku xidhay wiishka dhexdiisa, si toos ah ayuu ugu dhaqaaqay Big Cheese. isagoo awoodiisa adeegsanaya ayuu si xanaaq leh u weydiiyey aaway Susan, laakiin Big Cheese waxba kama gelin arrintaas, wuxuuna yidhi waxaan hayaa dalab, haddii aad aqbasho gabadha way badbaadi doontaa. wuxuu ballan qaaday haddii aad siiso dhiiggaaga aniguna Susan waa sii daynaya. maat oo Susan u ololsan ayaa aqbalay heshiiska, laakiin Big Cheese ayaa fursad helay sigaar ayuuna shitay, wuxuuna qiiqa ku afufay wejiga Beastman. qiiqa dartiis Beastman awoodiisii wuu waayey, si khasaba ayaa lagu geeyay shaybaadhka qarsoodiga oo lagu xidhay. markuu maat soo miirsaday wuxuu isku arkay isagoo sariir ku xidhan. Big Cheese ayaa u mahad celiyey oo ku yidhi dhiiggaaga hadda waxaan ka samayn doonaa dheecaan badan, laakiin caado ayaan leeyahay, weligay markhaati nool kama tago. sidaa darteed wuxuu Professor Mackley ku yidhi isla markaa dhiigga ka qaada dil. maat oo niyo jabsan ayaa ku yidhi Susan siida, laakiin Big Cheese ayaa mar kale ku yidhi ma reeba caddeyn yar. ugu dambayn Professor Mackley ayaa qaatay dhiigga, kadibna wuxuu diyaariyey sun si uu maat u siiyo. dhammaadkii Beastman wuu soo dhawaaday, laakiin si lama filaana 3 booliis oo hubeysan ayaa shaybaadhka soo galay, waxayna amreen in la isdhiibo. waxaa la ogaaday in inta aan dhismaha la soo gelin, maat uu wacay dembi baadhe Monster si uu caawinaad u weydiisto. taasina waa sababta ay booliisku waqtiga saxda u yimaadeen, waxayna maat badbaadeen inta aanay xaaladdu faraha ka bixin. laakiin Big Cheese ma rabin inuu isdhiibo, rasaas ayuuna shaybaadhka ka dhex bilaabay. booliiskuna isma dhiibin, waxayna u dhaqaaqeen inay labada dhalinyarada badbaadiyaan, halka Big Cheese iyo Mackley ay u carareen gudaha si ay u dhuuntaan. rasaasta dhexdeeda dembi baadhe Monster ayaa sariirta maat ka furay, wuxuuna gaadhigiisa ku geeyey Susan meel ammaan ah. in yar kadib Monster wuxuu kooxdiisa ku amray inay tuugada eryadaan. laba sarkaal ayaa shaybaadhka ka dhex helay Professor Mackley isagoo isticmaalaya dhiigga Beastman. saynisaanku wuxuu isticmaalay qaabka dheecaanka, wuxuuna islahaa hadda waad waaraysaa, laakiin booliiska ayaa koronto ku qabtay oo dhulka dhigay, waxaana caddaatay in dheecaanka uusan shaqaynayn. laakiin Big Cheese weli gacanta laguma dhigin, wuxuuna xafiiskiisa ka soo ridayay rasaasan kala joogsi lahayn oo uu ku beegsanayo booliiska dibadda gaadhiga dhexdiisa. maat iyo Susan waxay raadiyaha ka maqlayeen wax walba. maat wuxuu yidhi waa inaan booliiska caawiyaa, laakiin intaas ka hor maat wuxuu isku dhuftay feer xooggan si uu u eego in awoodiisii soo noqotay, laakiin wuxuu dareemay in qiiqu weli saameyn ku leeyahay jirkiisa. hase yeeshee inkastoo uusan awood lahayn, maat wuxuu rabay inuu booliiska caawiyo. awood la'aan ayuuna xidhay dharka Beastman, dhismaha ayuuna u cararay. wax yar kadib Beastman wuxuu gaadhay dabaqa xafiiska. booliiska ayaa isku dayay inay Beastman caawiyaan, laakiin Big Cheese ayaa ka faa'iidaystay mashquulka oo u cararay dhanka saqafka sare. inkastoo uu dhaawacanaa, Beastman isma dhiibin, wuxuuna eryaday Big Cheese oo isku dayay inuu dhismo kale u boodo. maat isna wuxuu isku dayay inuu boodo, laakiin kuma guulaysan, wuxuuna ka laalaaday dhismaha qarkiisa. markuu arkay in Beastman uusan waxba samayn karin, Big Cheese wuxuu go'aansaday inuu dilo, wuxuuna lugta kaga istaagay gacanta dhaawacanaya maat. nasiib wanaag Susan iyo dembi baadhe Monster ayaa waqtigii saxda ah yimid. Monster ayaana si degdeg ah u toogtay Big Cheese, laakiin weli wuu sii baxsaday isagoo gaadhigiisa u cararaya. isla markiiba Beastman ayaa soo istaagay oo eryaday. markuu gaadhay goobta
goobta baabuurta Bisaman wuxuu ka booday gaariga dushiisa Big Cheese oo gudaha ku jiray wuxuu kordhiyay xawaaraha gaariga wuxuuna bilaabay inuu rasaas ku rido dhanka saqafka laakiin Bisaman uu ka badbaaday xabadaha si lama filaana Big Cheese ayaa breega qabtay Bisaman wuxuu ku dhacay gaariga hortiisa markii uu arkay Bisaman oo dhulka yaala Big Cheese ayaa gaariga ku dardaray laakiin mar kale dambi baare Moser ayaa yimid waqtigii saxda ahaa gaarigiisa ayuu dhexdooda geliyay oo Bisaman badbaadiyay kadib isku daya badan Big Cheese wuxuu ka baxay gaariga wuxuuna qori ku qabtay dambi baare Moser sidoo kale wuxuu Susan kala soo baxay gaariga wuxuuna u kaxeeyay warshada biisaha Bisaman ayaa isna ka daba tagay markuu galay warshada Matt wuxuu arkay Susan oo xarig ku xiran oo hadda si xawliya ugu sii socota mashiinka wax jarjara isagoo aan waqti iska lumin Bisaman wuxuu isku dayay inuu mashiinka joojiyo laakiin markaas wuxuu dareemay in awoodiisii ay soo noqotay wuxuuna awoodiisa ku burburiyay kantaroolka mashiinka markii Susan ay ku dhici rabtay mashiinka afka badan leh Bisaman ayaa si degdeg ah ugu cararay wuxuuna gabadha soo jeeday xilli ugu dambeeyay oo badbaadiyay hadda waxaa haray kaliya in Big Cheese la soo afjaro Bisaman wuxuu ka helay bakhaarka warshada meel aan laga baxsan karin Big Cheese wuxuu isku dayay inuu la heshiiyo oo yiri ila shaqee haddii aan midowno dheecaan badan ayaan sameeynaa lacag badanna waan wada heli doonaa laakiin Bisaman uu diiday oo yiri ma ilaawin hadalkii Professor Tracker awoodeedina waxaan kaliya u isticmaalayaa wax wanaagsan markuu taas maqlay Big Cheese wuxuu isku dayay inuu weeraro laakiin Bisaman ayaa si degdeg ah ugu hortagay oo fogeeyay Big Cheese wuxuu ku dhacay suunka mashiinka leh wuxuuna hadda si xawli ugu socday mashiinka barafka sameeya Matt ayaa u cararay si uu u badbaadiyo laakiin waqtigii ayaa ka dhacay indhihiisa hortoodana Big Cheese wuxuu ku noqday baraf adag oo halkaas ayuu ku dhintay ugu dambeyntii dagaalkii uu dhamaaday dambi baare Moser wuxuu Bisaman ugu hambaliyay badbaadinta Susan iyo ka adkaanta dambiilayaasha kadib Bisaman wuxuu dambi baare Moser u sheegay aqoonsigiisa dhabta markuu arkay Moser uu yaabay kadib Moser wuxuu Matt kula taliyay dambiyada la dagaalankooda anaga noo dhaaf ugu dambeyn Matt wuxuu Susan geeyay gurigeeda ugu dambeyntiina wuxuu u sheegtay jacaylkiisa kadib Susan ayaa u soo dhawaatay oo dhunkatay sidaas ayuuna geesigii ku helay gabadhii wuxuuna muuqaalkeena maanta ku dhamaaday adigoo like saaray muuqaalka channelkana subscribe yidhi oo nagu soo biiray waxaana inoo balana muuqaalkan xiga